kusoo dhawaada kulanka asluub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka asluub. kulanka asluub waa barnaamij markaasi aan kula kulanno bulshada qeybaheeda kala duwan annagoo markaasi kusoo qaadano mawduucyo kala duwan. haddaba maanta barnaamijka waxaa marti igu ah macalin Abdirasaaq iyo sidoo kale macalin Cali Sugaal oo ah laba macalin oo markaasi ka howlgala magaalada Iskiristuna. barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay saameynta uu ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed iskuulka inta uu cudurada ay socdeen. barnaamijkeena waxaa kaga badan doontaa dhammaan su'aalaha markaas as leedihiin kuwa markaasi u baahan jawaabahooda inaad heshaan. marka koowaad waxaan kusoo dhaweynayaa macalin Abdirasaaq. kusoo dhawo kulanka asluub. على أسلوب ما سنتهاي وحن كاجا ما تعلن يا برنامج كان قيمة له وما ركتي ما أنت نوع سنتي ودوهاي وأنا ما سنتهاي. هذا مدن مع العالي كسر دواء. برنامج كان. ما سنتهاي نعلي. هذه أدبك عجب اللي أسيد بالشدة دوي حيلان تهاي مرة والبوق جابيسو عندي راح اللي وحي معلومات الجاسيس. هذه مع العالي قوته محيط هاي سببت أي سويد أدورة إلى إسكول لذا. sii furnaadeen inkastoo aan ognahay jaamacadaha iyo dugsiyada sare in la xiray in Grundiga ama qaybta dugsiga hoose ay sii furnaadeen maxay tahay sababta u doorta islaada. bismillaahir rahmaanir rahiim. wallahi su'aashaas cali waxay leedahay dhowr waji baan anu arkaa. waata koowaad waxaa caafimaadku waxay ay leeyihiin in ay yar tahay tirada caruurta ku dhacda cudurku ay yar ama iyagu aan qaadsin karayn inay aad u hooseyso. caruur la baaray oo 180,000 oo qof uu cudurku saameeyay la baaray oo cudurka uu ku dhaco la baaray wax laga helay ilaa 10 meelahaas sida ay sheegeen waxa caafimaadku ay ka mid yihiin folka sumidheedka gaar ahaan understanding ninka la yiraahdo oo hormuudka ka inuu hogaamiyo macluumaadka waddanka siinayo. marka arrinkaas waxay dhahaan caruurta had iyo jeer kuma badna inuu ku dhaco marka la eego nisbada badan ee uu ku dhaco cudurku inay caruurta ku yartahay aad u yartahay. waa talabaad dhinac kale marka laga eegana iyana waxa ku hoos jirta oo la yiraahdo inay tahay arrimo la xiriiro dhaqaale. dugsiyada sare iyo jaamacadaha way noognahay in la xiray gaar ahaan dugsiyada sare. waa dugsiyada sare waxa loo nisbeeyay inay yihiin dad waaweyn guryaha iyagu joogi kara kaligood aan u baahnayn in waalidku la joogo guryaha uu la joogo balse caruurta ay dhigataa dugsiga hoose dhexe inay waalidiinta u lex jeclaabayeen dawladdu in dhaqaalaha waddanka uu dego sababta awgeedna ay guriga waalidiintu ay joogaan. marka yani in maadaama ay yidhaahdeen caruurta dugsiga hoose dhexe dhigata kuma yara cudurku uu ku yaryahay ku dhacayaa uma baahna markaa waalidiinta inay guriga la joogaan. ilmuhu haddii uu caafimaad qabo iskuulka wuu imanaya haddii uu xanuunsanayana gurigu joogaya labadaa intaas u nisbeeyaan hadee jirna kolley malinaya aan sii faahfaahin. waad maasan tahay sida aad maaragtay aad su-aashaas u sharaxday macalin Abdirasaaq maxaad ku dari leedahay. runaanta cali baa si fiican u sharaxay su-aashaas. waxaan kaliya ku dari lahaa qaybta dambe oo cali uu ka dhawaajiyey oo ah in dhinaca dhaqaalaha xataa meesha ku jiro. waxaa kaloo ku jira meesha dhinaca caafimaadka ayaa meesha ku jira oo ah yacni dad badan oo ka shaqeeya hay-adka caafimaadka isbitaalada iyo meelahaas oo dhan waxaa ilmahoodu dhigtaan xanaanooyinka iyo dugsiyada hoose dhexe. haddii marka caruurtii ay joogaan guriga waxaa markaa imaanaysa in waalid badan oo muhiim u ahaa caafimaadka in iyaguna guriga ay joogaan. markaas halkaa waxaa ka imaanaya awalba caafimaadkii cisbitaaladii iyo hay-adka caafimaadka oo culayska saaran aad u badnaa. haddii ilmihiina guriga ay joogaan markaa waxay noqonaysaa dad badan inay saameyn ku yeelato oo ay markaa iyaguna guriga joogaan. taasina ay dadkii la badbaadinayay ee xanuunsanaa ee cisbitaalada soo galay markaas laga yaabo in laga gaari waayo in sidii la rabay loo caawino. marka intaasun baan ku dari lahaa. inta kaleeto cali baa si fiican u sharxay. ma jiraan waxyaabo ee markaasi ay sameeyeen waaxda maaragtay iskuulka iyo qaybta maaragtay kamuunka ay kaga taxadirayaan ama ay ku wacyigelinayaan maadaama ay arrimo maaragtay cudurro ay socdaan intuu ay iskuullada ay furnaayeen ma jiraan waxyaabo gaar ay sameeyeen macallimiinta. waa jiraan oo run ahaantii waxaa marka hore la qaatay talooyinka maaragtay hay-adka caafimaadka si wanaagsan baa loo wada qaatay taas dalkoo dhan.
iskuullada marka maamulka iskuullada waxay sameeyeen in wacyigelin dheeraad ah lasii sameeyo in maaragtay qalabkii gacmaha lagu dhaqanayay iyo waxyaalihii oo dhan lasii sameeyo maaragtay halkaas lasii xoojiyo. waxaa kaloo la sameeyey in oo annaga macallimiintana lagu dhiirigeliyey iyo guud ahaan shaqaalaha iskuulka in haddii ardaygu laga dareemo wax yar oo maaragtay ama qufac ah ama xumad ah ama xanuun ah markaa ardaygii si toosa guriga loogu diro waalidkiisna inta la waco maaragtay loo sheego oo in maaragtay ardayga uu xanuunsan yahay guriga joogo. waxaa kaloo la sameeyey dadka khatarta ugu jira cudurkan oo ay noqon karto macallimiin ay noqon karto maaragtay arday iyagana si gaar ayaa loo wacyigeliyey oo qofku hadduu dareemayo tusaale ahaan oo kaleeto inay xanuun kale jiro ama maaragtay xanuunkan uu khatar ku yahay wuxuu la xiriirayaa maamulka oo uu maaragtay arrintiisa u sheegayaa. waalidiinta ardayda ruuxooda khatarta ugu jira arrintan le waalid iskuullada waxay la xiriirayaan maamulka iyo markaa dadka arrintaas qusayso ayaa iyaguna markaa halkaa xal u helaya. waad mahadsanta waa kusoo noqon doonaan. macalin waxaad kolley xoogaan u tahay inay jiraan arday qaar ay waalidiintooda xanuunsan yihiin su-aashaasuna ay dad badan isweydiinayaan. ardayda caafimaad qabto iyo kuwa waalidiintooda markaas waxay ka wada waalidiintu ay xanuunsan yihiin ee ardayda iskuulka imaanayo iyo kuwa aanan waalidkooda xanuunsan iskuulka imaada saameyn noocee ayaa is leedahay ka imaan karta arrintaas ama ma jiraan waxyaabo markaasi dhaco dhanka iskuulka? wallahi ardayda waalidkood masalan ama familiga qaar ka mid ama waalidkuba xanuunsanayo ee guriga joogo laakiin ardaydu ay caafimaad qabaan sida uu masalan uu sharcigu dhigayo haddaynu dhinaca sharciga u baydhno school plicty wax lahaa jira. school plicty marka uu jiro waalidka xanuunsanaya guriga jooga bilmasal waalidku hadduu xanuunsanayo guriga joogo waxay caafimaad ahaan marka laga fikarayo waxay danta ku jirtaa inuu ilmuhu guriga ka maqnaado inta ugu badan guriga markuu joogana aanay waalidka aada isugu dhawaan. marka 7 saacadood ama 6 saacadood ama 8 saacadood ilmuhu iskuulka ku maqan yahay waalidka xanuunsanaya guriga joogo taas ilmaha waxay tahay nooc min badbaado horta. laakiin guriga markuu yimaado inuu waalidka ka durko oo aanu meeshii aanu aada ugu dhawaan taasna iyadoo meesha waxaa caafimaadku haday jeer waxay hay-aduhu in saas ay noqoto arrinku. dabcan waalidiin badan baa walwalka qaba su-aashaas. waalidiin badan baa leh carruurtayadu iskuulka uma soo dirayno sababo la xidhiidha waanu ka baqaynaa mar haddii iskuulka ay jiraan arday loo tuhunsan yahay inuu qabo anaguna kuwayaga ma saraynayno uma soo dirino iskuulka taa walwalkeeda ay leedahay. laakiin marka iskuulla badan baa iyana jira maadaama uu jiro muhiimadii khasabka ahayd ardaygu inuu iskuulka tago ilaa dugsiga hoose dhexe waa ku khasban yihiin inuu iskuulka tago. ardayga caafimaad qaba maadaama la leeyahay iskuulka ha tago way ku khasban yihiin iskuulka tagaan. waxaa markaa imanaysaa school breakii wax la yidhahdo inay daruuri tahay in ardaygu iskuulka yimaado maadaama ardaygu iskuulka laga rabo waalidkuna ay iyaguna baqdin dhinacooda ay dareemayaan taas waxay keeni kartaa xoogay iska horimaad iskuulka fikradiisa ay wateen iyo sharcigii iyo waalidiinta ra'yigooda ahaana ilmahaygaan u baqaynaa uma soo dirina iskuulka. taas markaa si aanay isku dhaco oo yani xeegana xeega u noqoto ilkana ku nabad galaan xalal kaloo badan baa jiro iskuulka hayo oo meesha iman kara. waa ku soo noqon doonaa xalalka macnaha jiri kara ama macnaha waxyaaba ay heli karaan waalidkaas oo kale maxaa ka mid ah? run ahaantii waalidka markii ay xanuunsan yihiin labay kala dooran karaan. waxa weeyaan in ay yani ilmihii iskuulka usoo diraan oo iskuulka si caadiya u yimaado. waxay kaloo dooran karaan haddii ilma ay ka dareemaan in uu isaga ruuxiisu calaamado muujiyey waxay ku hayn karaan guriga ayuu ilmaa joogi karaan. waxaa kaloo iyaduna jirta maadaama xaalad adag waddanku uu ku jiro oo yani xaalad caafimaad iyo cudurro uu ku jiro sharcigan school plictiga oo ah yani in ardaygu waajib ay tahay inuu iskuulka aado xoogaa sidii waagi hore loo eegi jiray hadda waa laga khafiifiyaa oo waxaa la eegayaa weli sharciga waa jiraa waa sidiisii laakiin haddii waalidku walwal muujiyo tusaale ahaan oo kale cunugii maadaama xanuun uu jiro gurigii lagaba yaabo cunugii inuu viruskii ama maaragtay soo qaado isagoon laga garanaynin markaas haddii waalidku uu yidhaahdo cunugii gurigu iska joogayaa
wax cadaadisa markaas lama saarayo oo maaragtay wuxuu joogayaa gurigu joogaya waxyaalaha kaleeto oo run ahaantii la samayn karo waxa weeyaan oo maaragtay laakiinse taas waxa weeyaan ilmaha markuu iskuulka aado in iskuulka warbixin la siiyo oo la yiraahdo annaga xaafadda iyadu way xanuunsan tahay ama cunugu ilmaha ugu sheego iskuulka macallimiinta ugu sheego oo markaas wax taxadir la sameeyo waxa la samayn karaa oo kaleeto in xoogaa la kala durko in cunugu meel kursi gaar u fariisto xoogaa dadku ay kala durksan yihiin muhiim waxa ah in waalidka xaaladiisa macnaha iskuulka ay soo gaarto oo aan la qarin wixii haddii la qariyo waxaa laga yaabaa in markaana iskuulkii dee cunugiisa caadiya oo ula macaamilo tusaale haddaan usoo qaato annaga iskuulka waxaan ugu dhacday arday waalidkood xanuunsan yahay way noo sheegeen waxay yidhahdeen aniga waalidkay waa xanuunsan yahay dhakhtar buu ku jiraa maxaan sameeyaa iskuulka ma joogaa mise gurigii baan aadaa anigu ma xanuunsanin kulle hadda sidaan dareemayo marka waxay noqotay maamulkii baan la hadalay waxaan idhi ardaygii sidan buu leeyahay waalidkiis waa xanuunsan yahay sida hadda cali uu sheegay oo kaleeto maamulku waxay yidhahdeen ardaygu maadaama isagu aanu xanuunsanayn oo isaga laga arag wax calaamado ah oo muujinaya in uu xanuunkii qabo hadda taxadar baa la samaynayaa ardaydii kale uu la fadhiyay ayaan ka durkinay waa la kala durkiyay ardayda xoogaa baa la isu dhexaysiiyey meesha marka hore isku dhawaayeen si markaa casharadiisa ardayga uu qaato marka in mar kasta la kala war qaato oo waalidkii iskuulkii ilmihii xaaladuna ay furan tahay oo wax ceebi ma jiraan la kala war qaato baan qabaa inay sahlayso in macaamil fiican la helo aad iyo aad sidoo kale waxaa jira waalidiin baqdin badan macnaha qabay arrintaas macnaha su-aashaas aynan weydiiyey haddii ardayga ay noqotaba inuu guriga joogo wax ku aqristo iyada naftirkeedu waxa saameynta ay keeni karta arrintaas inuu ardayga isagoo caafimaad qabo laakiin waalidka ay la baqaan inay iskuulka u diraan runtii waxa wanaagsan in yani haddaan mar cunugu aanu isagu muujinayna wax calaamaad ah inuu iskuulka aadaa wanaagsan laakiin haddii waalidku ay doortaan ama welwel ka jira guriga uu cunuga iska joogo guriga waxa wanaagsan inuu cunugu markaas active ahaado oo maaragtay macallimiinta la xiriiro oo maaragtay shaqadii markaas uu samayn lahaa uu sameeyo isla markaana waxa weeyaan uu markasta macallimiintii weydiiyo meesha wax marayaan maxaa yeelay ardada badanaaba iskuulka jooga hawsha waa u taallaa hawsha way taallaa wixii uu samayn lahaa way taallaa waxaa laga yaabaa wiig kasta tusaale ahaan annaga talaadada maalin talaadada ah ayaan ardada waxaan siinaa hawshoodii ka maqnayd wixii ay wiigaan gafeen ardada maqan maalin talaadada buu imanayaa qofkii ama qof buu usoo dirsanayaa ama waxaa la sameynayaa vclass iyo barnaamijyo jira baa loogu dirayaa marka hadduuba cunuga guriga joogo isla markaana uu fiican yahay waxa fiican inuu aada u firfircoon yahay oo xiriir fiican uu la sameeyo macallimiintii iyo iskuulkii oo markaasi uu duruustii u helo oo aanu dib ugu dhicinin waad mahadsan tahay isla su-aashaas ayay la socotaa su-aashani waalidka kaalinta uu ku leeyahay arrintaasi ardayga haddii guriga uu joogo maxay tahay ardaygu hadduu guriga joogo waalidka kaalintuu ku leeyahay waxa weeyaan horta marka hore isku mid maaha marka qof pedagoog yahay uu kalaaska joogo ardayga uu waxbarayo ee uu kalaaska hortaagan yahay waxbarayo iyo markuu ardaygu guriga joogo ee guriga wax lagu barayo macallinku markuu goobjoog yahay kalaaska uu waxbarayo ee soo taagan yahay wax badan oo ardaygu uu doonayo inuu ogaado buu ogaanayo hay isla markaana haddii ardaygu guriga joogo culayska oo badani wuxuu imanayaa ardadii oo qaabkii hore macallinka wuxuu weydiin jiray markuu kalaaska joogo aan helayn laakiin haddana way fududdahay si cabdishaaq sheegay way fududdahay in digitaal yani lagu baro iskuullada ardayda ku bartaan kulli way ku haystaan qof iyo arday aan daata haysan ma jiro marka xalka wuxuu noqonaya inay guriga joogaan waalidku laakiin uu shaqo badan u taalo waalidka shaqada u taala waxa weeyaan inuu ardayga uu dhiirigeliyo inuu ardayga casharadiisii inuu ka shaqeeyo in kala eego waalidka garanaya yani school background leh inuu yidhaahdo masalan halkaad maraysa maxaa lagu soo diray casharada la eego ardaygii isagu la fadhiisto wixii ay mataqaana guriga kusoo habeeyaan kabacdi iskuulka kusoo celiyaan soo cabdisaq sheegay iskuulka markaa ay xilligii laga rabay soo celiyaan haddana waajibaad kale la siiyo casharo kale haddana sidoo kale yeelaan laakiin ardayga xoogay ay waalidku ay ku adag tahay aan hore u garan karin waxaan waxay yihiin inuu haddana door weyn ku leeyahay inuu ardayga ag fadhiisto oo yidhaahdo hay casharada ma dhamaysay maxaa kuga adag maxaad macallinka ula noqonaysaa waxaas baa weydii macallinka kula noqo nala soo xidhiidhaan yani iskuullada weydiiyaan casharada kan iyo ilmaha ku adag yani wuxuu noqonayaa wada shaqayntii intii hore iskuulka iyo guriga ka dhexaysaba aada u xoogaysanaysa doorkii waalidiinta
oo mar walba taagnaa oo aad iyo aad iskuullada ugu dhisan yihiin ayaa imika sii laba jibaarmay marka waxaa loo baahan yahay waalidiinta inay xoog iskuullada ula shaqeeyaan ardayda casharada guriga ku samaynaya dabcan waxaa jira aalado badan oo lagu sameeyo casharada iyo iskuul masalan waxaa jira studio wax la yidhahdo waxaa jira anvia class wax yani google classroom way badan yihiin digitaalka laarumeedalka lagu barto iskuulka way badan yihiin ardayda lagula xidhiidho laakiin waalidkii inuu yimaado isagii oo casharadii waxaa jira waalidiin aad iyo aad Soomaaliya oo yani maasha Allah aad u dadaala oo iyagoo soconaya yimaadaan sanahay casharkiina siiya way geeyaan ardaydu way ka soo shaqeeyaan macallimiinta wala xiriir way leeyihiin way soo celiyaan mid kale la siiya saasoo kale weeyaan marka yani waxaan ku boorinaa waalidiinta Soomaalida inay iskuulka xoog la shaqeeyaan inta ilmuhu guriga joogo waad maasan tahay macallinku wuxuu ka dhawaajiyay inay jiraan aalado sida V-class studio wax lagu barto doorka ay ka taagan yihiin waalidiinta Soomaaliyeed ama macnaha baahida jirto dhankaas aaladaas inay fahmaan maxay kula tahay run ahaantii aaladahaasu si markii loo fiiriyo aalado dhib badan maaha waxa weeyaan waa aalado aad u sahlan oo maaragtay la isticmaali karo waalidiinta tusaale ahaan waxaan ognahay inay aad u isticmaalaan tusaale ahaan oo kaleeto baraha bulshada waa Facebook iyo Snapchat iyo wixii la mid ah qofku marba hadduu taa fahmay iyo mailka iyo waxyaalaha mar hadduu fahmay tana uu fahmi karaa waxaa la rabaa meesha un doonitaan maaragtay qofku inuu wixii doonayo qofka mail furay ama Facebook furay oo wax ku qoray ama Snapchat wax geliyay wuu gelin karaa wuu la socon karaa si fiican buu wax ula socon karaa alaabtan kaleeto qalabkan kaleeto oo iskuulada waa qalab aad u sahlan qofkii ay kaga jirto markaa tusaale ahaan oo kale mugdi ardayda ayaa aad u taqaan wuxuu agtiisu soo fariisan karaa wuxuu leeyahay haye maxaa lagu soo diray fur laba maalmood hadduu ag fadhiyo maalin dambe tuu fahmayaa sababtoo ah waa sidii mailkii oo kaleeto halka waxaa ku jira wax lagu soo diray halka casharkii waa ku jira halka waxaa ku jira maaragtay xaadirintii ardaygu inuu maqan yahay inuu joogo marka run ahaantii aad baa looga taxadaray inay aaladaha kale yihiin kuwa sahlan oo waalidkuna uu fahmi karo ardayguna uu fahmi karo waxaan kale oo ku darayaa maaragtay in waalidka qaarkii ay u haystaan inay waxaan wax adag yahay computerka ma aqaan waxa kan meesha la soo geliyay anigu ma aqaan marka hore inaan qofku isdhiibin mar haddaynu aaladaha kale oo baraha bulshadaba naqaan waxaan qabaa tanna waa la fahmayaa marka inuu ardayga kusoo dhawaado markaa uu fahmo baan qabaa absolute aniga waxaan ku dari lahaa in waalidiin baa jirta noo yimaada oo raba inay fahmaan qaabka V-class loo isticmaalo marka waalidiinta course baan u furnaa adiga intaasoo waalid baa imanaya waxay leeyihin bal nabarag V-class marka iyagu had iyo jeer waxay ku dadaalaan inay bartaan qaabka haddii ilmuhu guriga joogo oo xanuunsanayo iskuulka loogu soo sheego halkay telefoonka soo diri lahaayeen telefonkana inta badan macallimiinta laguma helo laakiin way ka sahlantahay adiga gurigaaga joogo intaad aad gasho computerkaaga furto aad V-class soo saarto aad magaca ilmaha bes ku dhufato dadkana aad ku dhufato dir oo kale intaasaa ku filanba macallinka marka wuxuu fahmay ilmuhu xanuunsanayo waalidkana uu soo shaqadiisu ka soo baxay marka waalidiin badan baa jirta timaada nabara waa barnaa qaabka loo isticmaalo yani maasha Allah aad iyo aad bay u fududahay xitaa waalidiinta ay ku adag tahay aaladahan technology casriga si dhib yar bay ula qabsadeen aad u maastaa waxaan soo gaarnay qaybtii gabagabada programkeena talo iyo dardaaran ummadda Soomaaliyeed maxaad gaarsiin lahaydeen xaaladda maadaama lagu jiro xaalad adag ay tahay gaar ahaan waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed ee programkan daawan doona waa maasantahay cali waxaan ugu horeyn ka bilaabayaa ardayda guryaha jooga macnaha iskuulka aan joogin ayaan ka bilaabayaa waxaynu inagu badanaaba isticmaalnaa oo dadku ay yidhaahdaan iskuulkii waa la fasaxay ama waa xiran yahay horta iskuulka lama fasaxin lamana xirin waxa weeyaan waxaa la bedelay qaabkii waxbarashada ardaygu iskuulkii meeshuu tegi jiray oo uu physical intuu baxo uu tegi jiray ayaa waxa loo bedelay inuu guriga joogo laakiin waxbarashadu waa sideedii iskuulkuna ma xirra duruustu caadi bay u socotaa wixii la isu diri jiray iyo maaragtay shahaadadii sidii baa loo samaynayaa iskuulku waqti buu leeyahay 2 bilood kadib uu xirmayaa marka waxa horta iskuulku sidii ayuu u socdaa taa markaan ka baxo waxaan waalidiinta si gaar ah ugu dhiirigelinayaa markii ardaydu ay guriga joogaan waxaa sahlan in yacni qaabkii loo dhaqmayay nidaamkii waxbarashada in xoogaa uu jidkii ka leexdo oo laga yaabo ardaygu inuu habeenkii soo jeedo tusaale ahaan oo kaleeto uu ka dhumo maaragtay qaab hawleedkii uu ku shaqaynayay marka waxaan waalidiinta marka hore ku dhiirigelinayaa inay abuuraan jawi waxbarasho ardayga loo abuuro guriga dhexdiisa oo ama haddii la helayo meel gees ah ama qol
ama adigu maaragtay maasha allah familadeena qoysaskan waa badan yihiin laakiin haddii la isqorsheeyo waa la isqorsheyn karaa marka in waalidku ay jawi horta waxbarasho ardayga loo abuuro la yidhaahdo maaragtay meeshaan fadhiiso wax ku akriso isla markaana tusaale ahaan la sameeyo saacado go-an subaxdii 10 kalaa bilaabaysaa ama 9 bilaabaysaa ardayda qaarkood waa loo sheegaa waqtigay computerka soo fadhiisanayaan qaarna looma sheego laakiin in ay waqti fiican soo kacaan quraacdaan hawshana u fadhiistaan waalidkuna markasta uu isagu goobjoog yahay waayo cabasho waxaa mararka qaarkood timaada ardayna lasoo xiriirta iyo wixii lamid ah in ciyaalka yaryaroo walaalaha iyo kuwii kale iyo gurigii iyo maadaama guryuhuna ciriiriyeen ay buuq tahay marka waxaan aad iyo aad waalidka ugu dhiirigelinayaa in loo abuuro marka hore jawi waxbarasho oo degan isla markaana sida cali hadaayaba uu sheegay dhiirigelin markasta lala garab taagnaado xataa qorshe tacliimeed la sameeyo oo la yidhaahdo gelinka hore intan baad samaynaysaa kadibna waa qadaynaysaa oo loo ekaysiiyo qaabka iskuulka oo kasoo qaad ilaa iyo subaxdii 9 ilaa iyo 12 duurkii ama 6 saac intan baa qabanaysaa 6 saac waa qadadii 6 saac ilaa 1 la sii daayo adaa sii daynaysid hadaan qorshe kale lahayn la yidhaahdo 1 waa kusoo noqonaysaa meesha fadhiiso haddii aadan computerka wax kugu jirina wixii kale akhri waalidku hadduu shaqo aadana telefoon kula socdo ama sida guriga loo kala waaweyn yahay dhalinyarada kaleeto lagu dhiirigeliyo ama isaga uu la ballamo marka waxay u ekaanaysaa qaabkii iskuulka u ekaanaysaa oo markaa maaragtay sidaas loo wajaho oo loo maareeyo ayaan kula talin lahaa ducali wax ku daray waa maasanta cali dardaaranka iyo talada guud talada arrinku culayskiisu leedahay ardada waxay haystaan timetable kheymadii bay haystaan kheymadii classka bay haystaan kheymadii classka ay ku dhiganayeen bay guriga la tegayaan sida cabdilxaq sheegay waxaa looga baahan yahay waalidkuna inuu marka doorkiisa ka qaato iskuulka markay joogaan kheymaddaasay gelayaan xisaabta xilligaasay bilaabayaan raastada xilligaasay leeyihiin oo qorshaysan tahay laakiin guriga marka la joogo arday kheymadii guriga u qaato jaraskii iskuulka la tumayo oo kale gurigu ka jira marka waalidiinta waxaa loo baahan yahay inay ayagu jaraska gacantooda ku qabtaan inay ardaygu xilligii uu iskuulka bilaabayay ee xiisada fadhiisanayay inuu kaco fadhiisto wax akhristo gaar ahaan ardayda secondary-ga dhigataan waxay sameeyaan subaxii 8 barka markay joogaan arday wali computerkiisa hor fadhiya yaa halkan macallinku wuxuu soo qoraya yaa halkan jooga fadhiya hebel baa fadhiya saasoo kale weeyaan yani marka muxuu qoranaya qiyaamkiibaa ayaa la yeedhinaya qof walba inuu xaadir yahay la tusaya toos gurigaaga joogtaa laakiin haddana kalaaskaba dhex fadhidaa macallinkii baa toos kula xidhiidhaya tan dugsiyada hoose dhexna waa sidoo kale oo xilligii iskuulka la bilaabayay yaanu ardayga intuu iska seexdo sida macalin cabdishaqiiqi anuuna fasax baa lagu jira iskuulku waa fasax wax fasax la yidhahdaa ma jirto iskuulku u socdaa xilligii kalaaska la gelayay ayuu ardaygu kacayaa waalidkii sidiibuu ardayda usoo awalba usoo diri jiray iyo diyaarintiibuu diyaarinayaa wuu soo fadhiisanayaa ardaygu wuxuu bilaabayaa xiisadiisa caadiga ahayd akhriskii casharadii laga rabay waajibaadkii xitaa ardaygu waa in waalidku yidhahdo xilligan waa xilligii aad gelaysay beririfta intaasaad nusacbad mataqaana iska nafisisa kabacdi halkeeda wixii kasii waraysa taasu siday u dhacdo waalidiintu waxay u baahan yihin inay xoog iskuulka ugu xidhnaadaan wixii tala ah wixii maxaan ku rahdaa dheeraada u baahan yihiin inay xoog iskuulka ugu xidhnaadaan bay u baahan yihiin inay si joogta iskuulka ula soo xidhnaadaan bay u baahan yihin waxaan markii hore su-aashaan ku yaro lafaaqi lahaa qaybtii hore ahayd ardada iskuulka joogeen guriga joogay ee caafimaad qabeen iskuulka loo soo dirin halkaa waxaan ka yara dabageyn lahaa cali waxaa jira iskuullo waddanka ka mid ah oo waalidiinta had jeer ugu hanjaba haddaad ardaygii oo caafimaad qaba guriga uu joogo urus and mainland baan idinku samaynaa yani inaanu socialka idiin sheegayno idin gudbinayno nooc min waxa loo arka cagajuglayn dhinac marka laga eego cagajuglayn ma noqoso iyagu iskuul plictive eegaya ardaygu inuu waajib tahay inuu iskuulka yimaado laakiin waalidkii culays dheeraada bay saaraysa waalidka ilmihiisu u baqaya soo maa marka haddii la yidhahdo haddana urus and mainland baan kugu samaynaa si iskuulka iyo tobar way ka dhacday sfartal schoolan bay ka dhacday hisingan bay ka dhacday meelo kale waddanka kamida bay ka dhacday oo toos loo yidhi waxaan idinku samayn urus and mainland waxaan leeyahay arrinkaas inaan waalidiintu waxba ka welwelin iskuulka un xidhiir lasoo sameeya dabcan culays badan baa dee waddanka iyo iskastuna iyo waddanka oo dhan ka jira marka iskuulladu way fahmayaan iskuulladana isku wada mid maaha iskastuna commun wuxuu ka mid yahay communada aad ula shaqeeya waalidiinta dee fahmi kara waxa meesha ku jira marka kuma adkeynayaan waalidiinta iskuullada arrinkaas haba yaraatee waxba ha ka cabsanina talada ugu weyn aan kusii dari lahaa waxay in waalidiintu door aad u weyn markan ka ciyaaraan laakiin ay iskuulka ku xidhnaadaan si wada shaqayntu usii xoogisana aad iyo aad u maasanta maxaa ku dari lahayd waxaan raacinayaa
dardaarankaas runtii sida cali sheegayba aad iyo aad muhiim u ah waxa weeyaan arday badan oo weliba ardayda soomaalida maadaama hadda anagu aanu ardayda soomaalida aan af soomaali ku hadlayno oo waalidiinta iyo ardayda soomaalida hadalkii uu ku wajahan yahay waxaa jira ardayda soomaalida badankood ama qeyb badan oo kamid a haddaan dhaho inuu marka horeba iskuolka ku adkaa oo tusaale ahaan oo kaleeto arday cusub qaarkood u badan yahay qaarkood ay yihiin arday aan guriga kaalmo iyo taageero badan ka haysan qaarkood ay yihiin tusaale ahaan oo kaleeto arday suudan gadaal ka timi oo xoogaa duruustii aan sidii horeeto 8 kalaas ama 9 kalaas soo wada dhiganin marka taasoo keentay macnaha qalad iyagu ay leeyihiin maaha laakiin nidaamkiibaa wuxuu keenay mararka qaarkood in ardaygu markii horeba culays saaraa ardayga markii horeba culays saaraa marka haddii hadda markuu guriga aado oo uu guriga wax kusoo baranayo qaaba kan cusub ee loo shaqaynayana aanu fahmin waxay noqonaysaa culays kale inuu fuulo oo duruustii markii horeetoba sida cali uu sheegay macalinka la sameynaya wadahadalka oo macalinka la hadlayay markuu meesha ka baxdo oo xataa macalinka uu u sharaxi karo inaanu wixii fahmin oo uu macalinku akhrisan karo hadda ma jirto marka waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa waalidiinta sida caliba uu sheegay in aan iskaashano oo aynu dadaal xooga samayno inaga dhexdeena si aan ardaygaan markii hadhow iskuullada lagu noqdo aanu aad iyo aad duruustii maaragtay dib ugu dhicinin oo marka aynu samayno dadaal dheeraada dad badan oo macallimiina baa inagu jira waalidiin badan oo waxtaqaan baa inagu jira dhallinyaradeeni hore oo iskuullada ka baxay baa jira oo iyagu ruuxoodu maaragtay xataa arrimahan digitaalka iyo ku fiican marka in aynu baraarugsannahay oo aynu ku baraarugsannahay inaynu iskaashano sidii aynu isaga kaashanay in cudurkanu aanu inaseebin oo aynu u samaynay guruubyada oo aynu u samaynay wacyigelinta oo aynu maalin walba u kala war qaadanayno in dhinacan waxbarashadana aan kala war qaadano oo nidhaahno war adigu maxaa samaysay hebel oo ardaygaagu halkaas see yeeshay war hebel baa tusaale fiican sameeyey see yeelay ardada dhexdooda ruuxooda intii isku galaas ah ay iska warqabaan waxaa laga yaabaa waalid ka mid a 5 waalid inuu xoogaa duruusta ku fiican yahay ama uu yaqaan qof kaloo duruusta ku fiican marka in dhexdooda waalidiintiiba ay iskaashadaan oo ay la xiriiraan dadka ka baxsan oo aynu baraarugsannahay arrintan waxaa saldhig u ah in dadku baraarugsan yahay lagu baraarugsan yahay waxa ina sugaya iyo meeshaan higsanayno haddii baraarugaasu jiro qof kastaana uu maaragtay dadaalka sameeyo ilaahayna tala saarto waxaan qabaa in la guulaysanayo aad iyo aad umahadsantiin inta aana soo gabagabeyn 1 iyo 2 maxaad kusoo gabagabeyn leedaan programkan soo xirin wallahi waxaan kusoo gabagabeyn lahaa ilaahay ha naga dulqaado cudurkan dunida aafeeyey ilaahay ha naga dulqaado biidni illaahi kariim faraj khayr qabna ilaahay ha noo furo dhammaanka bulshada oo dhan ba waddan walba dunyada oo dhan ba ilaahay horta ha naga dulqaado aad iyo aad buu culays baa ina soo galay awooddii bani aadamka ayaa layna tusay inaynu nahay dad daciifa taana inaynu ku cibro qaadanaynu u baahan nahay inaynu wax badan oo waxaan filayaa weyd baa odhanaysa haddaad doonayso inaan ku arko corona ka bacdi coronavirus ka bacdi san inaad samayso weya oo aad raacdo tacliimaadka lagu soo jeediyo hay-adaha caafimaadka inaad maxaan ku dhahdaa aad ducaysato qof islaama haddaad tahay inaad ducaysato inaad ilaahay u dhawaato in dadku ay aada isu caawiyaan kooda daciifka kooda maxaan ku dhahdaa u baahan kooda jilicsan inay aada iyo aad sidii hore aada iyo aad laysugu caawiyo oo dadku ay mataqaana ay qalbiyadooda sufraan ayaynu u baahan nahay dhinaca iskuulladana waa sida cabdirasaaq waa dhameeyey gunaadka ugu dambeeyey wixii aad waalidiintu ay ka sheegsan yihiin ama ay fahmi waayaan nagu soo celiya insha allah waanu anagoon diyaar baan udinahay waxaan run ahaantii siduu cali sheegayba ilaahay subxaana watacaala cudurkan ay naga qaado dhammaan maaragtay ummadda muslimiinta ummadda soomaaliyeed iyo aadanaha guud ahaanba in ilaahay subxaana watacaala uu ka qaado waxaan raacinayaa oraahdii soomaaliyeed ee ahayd maaragtay hawlka madaali weli waa hogadii oo macnaheedu yahay hawshu weli waa meesheedii wey inaynu maaragtay sii laba jibaarno dadaaladeenii ahaa inaynaan inaguna isu tegin oo isdhexgelin ummadda kalena inaan dhexgelin oo aynu isbadbaadino waxaad moodaa mararka qaarkood marka hawluhu ay xoogaa dabcaan oo ama maaragtay aynu maqalo maanta xoogaa xaaladdu waa roon tahay in dadku ay banaanka usoo wada baxaan ay is arkaan ay wada fadhiistaan oo maaragtay sidaa marka waxaan qabaa taa inaynaan ku degdegin ilaa ay hay-aadka caafimaadka ee waddanku ay yidhaahdaan xaaladdu waa furan tahay dadku waxa isu tegi karaa cudurkii waa la idleeyey wax walba waa okay taana weli lama gaarin marka waxaan qabaa inaynu ku talagallo bilo
dheer waqti dheer inaynu taxadarkaa wadno oo aynu sidaa isu kaashano oo aynu wacyigelintii maaragtay aynu wadno tan iskuullada markaan waxaan kusoo xirayaa iyadana in waxaa la doonayaa maalinta cudurkan u dhammaado ilaahay naga saaro inaan ardaydeenu aanay joogin meel ka liidata meeshii markii hore ay joogeen markii cudurku u bilaabmay taana waxaan ku gaari karnaa sida hore u sheegnay dadaal waxaan ku gaari karnaa qalbiga oo la isu furo oo la yidhahdo war halkan baa ardaygaygu ku liitaaya maxaa adigu samaysay si aan adiguna u maaragtay baalka marka inaynu iskaashiga aynu xoojino ayaan maaragtay ku dhiirigelinayaa dadka sida cali uu sheegayna wixii ay wax ku adkaadaan ama su-aalo ku saabsan iskuulka diyaar baanuna inaan waqti kasta ka jawaabno ay nala soo xiriiraan insha allah aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin inaad maanta kulankan maanta iga soo qayb gasho macalin cabdirasaaq oo ah markaasi macalin ka howlgala magaalada Iskalastuuna iyo sidoo kale macalin cali oo maanta kulanka marti igu ahaa halkaas ayaan kusoo koobayaa kulankeeni maanta inta aan ku kulmi doono kulankan kulankiisa xigo waa Cali Asluub oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo